wuxuu waqtiga socdo ugu dambeyn leenkii ayaa noo hagaagay oo waana la aqbalay. farxaddu ma ahayn mid aan qiyaasi karay xaqiiqdii, waayo laba lamaano oo isjecel oo waalidkooda ka soo orday si ay jacaylkooda u badbaadsadaan riyadii ay jacaylkooda ku badbaadsanayeen ee u rumooweyso waxay ahayd farxad aan la qiyaasi karin. lamaanihii magaalada Muqdisho jacaylkooda inay badbaadsadaan kaga soo dhoofay noloshooda waxay dib ugu mideeyeen dalka Biljimka. xaqiiq waxaa noo bilaabatay farxad iyo nolol. hooyadii mar walba ay soo wacdo hadal way ugu tuuri jirtay oo weli ubad maada dhalin. wuxuu waqtiga socdo sanado badan ayaana la caynayay waxaa tihiin ma dhalayaal, laakiin hadal waalidiinta uu naga fogo Afrika jooga ayay ahaayeen. 18 sano kadib lamaanihii lagu caynayay waxba ma dhalaan oo in la kala fogeeyay la rabay. alxamdulillaah, ilaahay wuxuuna siiyey uurkii ugu horeeyay ayaan qaaday. xaqiiq farxadeeda lama qiyaasi karin. waxay ahayd dareen hooyo 18 sano ma dhashaa tahay la dhahayay oo ninkeeda in laga fogeeyay la rabay, jacaylkeeda in laga baabi'iyo la rabay. labadii famiil u midoobeen ayaa ubadkii ugu horeeyay. waxay ahayd farxad aan cidna qiyaasi karin. runtii wuxuu igu dhahay noloshaydii 18 sano ayaa labadeena waxaana la dhahayay waxaa tihiin ma dhale, waxaa tahay ma dhasho. waan u dul qaadanay heer waalidiinteeni xataa ay noo midoobaan si labadeena aanu kala fogaano. alxamdulillaah, waxaan ku sabarnay waxa ilaahay keenay, waan ku dul qaadanay, waxaan noqonay laba lamaano oo isaaminay. xaqiiqdii aniga ma aqaano adiga haddii aad ahaan lahayn nolosheeda meeshay ku damayn lahayd. waxaan ahaa qof dagaal badan, aan xishoonin, laakiin maalintii adiga jacaylkaaga qalbigeyga uu galay sidaadoo kale ayaan noqday. waxaan nacay dagaalka, buuqa iyo waxyaabaha lamid ah. waxaan mar walba ku dadaalayay dadka isdagaalsan inaan heshiisiyo. maalintaa noloshayda bedeshay go'aan waxaan ku gaaray dhib iyo dheef inaan kula qaybsado. ubadka waxaa bixiyay ilaahay. cudur walba hadduu kugu dhici lahaa diyaar waxaan u ahaa inaan kula qaybsado noloshaydii. 18 sano ayaana lagu caynayay, laakiin maantay ilaahay ayaana siiyey. waayo shalay ilaahan ka sugeynay, maantay ayuu ilaahayna siiyey. hooyo iyo aabbo iyo familka adigana ha u sheegin, anigana uma sheegayo. markaad dhasho maalinta isbitaalka ayaan rabaa inaan call video labada famil ka wacno oo aanu sheegno. waxaan ku dhahay noloshaydii waana la soo caayay, waana la soo dhibaateeyay. hal maalin kama shakinin jacaylkayga. garab istaaga labadeenaan isku muujinay ayaa maanta heerkan ku soo gaarnay, iyo ducadii aan mar walba ducaysan jirnay iyo sabarka wuxuu ilaahayna siiyo aan ku sabarnay. waa yahay noloshaydii. hadalkaaga ayaa jiro, weligay hadalkaaga hadal ma soo saarin, haddana ma soo saarayo. sidaa adigu jeceshahay ayaa dhacayo. xaqiiqdii bil walbo si wada jir ah ayaan u xisaabi jirnay, maalmaha si lamid ah. wuxuu waqtiga socdo ugu dambeyn maantay waa maalintaan isbitaalka si wada jir ah u aadeyno oo aan sugayno rajadii aan lahayn. xaqiiqdii kombiyuutarka markii la soo saarayay wuxuu sheegay in wiil aan wado, laakiin isbitaalka markaan tagnay meesha aan rajadeenayd inaan hal wiil helayno, alxamdulillaah waxaan dhalay laba mataano. farxadeydii wallaahi lama qiyaasi karin. labadeeni waan isku ooynay xaqiiqdii, waayo meeshaan hal wiil ka sugeynay ayaa laba wiil ilaahayna siiyey. alxamdulillaah, ilaahay ayaa wax walba awoodo. 18 sano caydii iyo aflagaadadii, maanta ilaahay laba mataano ayuuna siiyey. waxaan si wada jira u wacnay familkii. xaqiiqdii way aamini waayeen, waxay dhaheen beenaa noo sheegaysiin, laakiin call video waan u furnay. waxaan u sheegnay xaqiiqda inaan ka qarinay, waayo shalay wax walbaa nagu cayseen, wax walbaa nagu aflagaadayseen. maantay haddaana kala geen lahaydeen, shalay waxaa dhihi lahaydeen wiilkii ma dhalaha ama gabadhii ma dhashada. laakiin sabarkii aan sabarnay, ducadii aan ducaysanay ayaa ilaahay noo aqbalay. alxamdulillaah, maantana waad arkaysaan xaqiiqdii waxaa ahayn dad isku sabra, isku dulqaata. alxamdulillaah, labadeena wiil ayaan korsannay. markii 2 sano ay jiraan ayaa haddana uur qaaday. farxadeeni jacaylkeeni wuu sii ziyaaday. xaqiiqdii 18 sano ayaan sugayay hooyo iyo aabbo inaan noqonno. maantay markii labaad ayaan uur yeeshay. farxadeena ma ahayn mid la qiyaasi karo. xaqiiqdii tookadan waan u sheegnay waalidiinta inuu uur leeyahay. wuxuu waqtiga socdo gabar ayuu ilaahayna siiyey. alxamdulillaah, ilaahay ayaan ku xamdinay. noloshaynu maantay waa mid aad u qurux badan. xaqiiqdii familkii shalay inayna kala geeyaan rabeen, ma dhashaa tahay ma dhalo waay, shalay nagu caynayay, maanta way nagu faraxsan yihiin oo 3 caruur ayaan haysanaa. waxaan qisadan idinku soo gudbinay. waxaa laga yaabaa dhibaatadii iyo caayidii annagana lagu soo haayay
lamaana maanta isjecel nolosha bilaaw tahay ama nolol qurux badan haysto maanta inay caqabadaas haysato waxaan rabaa lamaanaha isjecel inaan u sheego caqabad dhibaato ay 18 sano ayaan u soo sabraynay ugu dambeyntii natiijadii Ilaahay aan ka sugeynay ayaan helnay hadaad aaminsan tahay in Ilaahay ubadka bixiyo bid'aadan warka uu sheego marnaha isku dagaalnina waan ogahay in waalidiinta qaarkood gabadha haday sanad ama 2 sano ama 3 sano ay dhali weyso inay jecel yihiin in wiilkooda ay ka furaan laakiin waxa idin sheegaa si walba aad u kala geysaan ubad idinka ma bixin kartaan muhiimaddu waxay tahay labada qof oo isku qanacsan ka isku daaya dad badan oo waxa arkaysaa dad isjecel inay kala geeyaan jecel laakiin xilliga qofka ee jecesha ama qofka uu jecel yahay in la kala geeyo ma jeclo waxaan leeyahay waalidiinta iyo kane ubadka Ilaahay ha bixiyo aaba shalay markuu ku guursanay ama hooyo isguursanayseen xaqiiqada inaa isku dhaleyseen balanqaad ah haysateen maaha waxa ka wada sugayseen Ilaahay anaguna waxaan ka sugaynaa Ilaahay hadii aad aragtaan laba qof oo isku faraxsan oo isjecel oo ubad ayna haysanin u duceeya inuu Ilaahay siiyo kala geynina halka kala geyn lahaydeen u duceeya inuu ubad Ilaahay siiyo xaqiiqdii noloshu way dhib badan tahay jacaylka iyo guurka caqabad badan ayuu leeyahay laakiin waxa loo baahan yahay in dulqaad iyo sabar la yeesho xanuuna ay ku kala tagaan laakiin muhiimaddu sidaa maaha qofka aad jeceshahay waa in si dhab ah aad mar walba u garab taagnaataa waqtigu farxadda ku siinay sida u garab taagneed waqti walba isku garab taagnaada lamaana walba oo dunidan ku nool labadii isqabto in labadii isjecel waxaan kula talinayaa mar walba isku sabra wax walbana way dhamaanayaan mar walba dhibaad aragtaan Ilaahay bariya anagana noo soo duceeya idinkuna waxaan idin leeyahay Ilaahay ha idin fududeeyo labadii maanta la isku diraayeen Ilaahay ha ka saaro wixii isku diraayo waxaan ku dhahay labadii lamaana ee 18 sano kadib culayskii iyo caaydihiis Ilaahay ka dul qaaday horta xaqiiqdii waxa ku dhahay aad baa u mahadsantihiin xaqiiqdii waxa tiin laba lamaano jacaylkooda in noloshooda u soo sabray oo meeshii ay deganaayeen ka guuray si jacaylkooda ay ku badbaadsadaan xaqiiqdii oo lamaano walba waxaan dhihi lahaa inay isku sabartaan isku dulqaadataan ubadka iyo xanuunka Ilaahay bixiyo lamaano walba oo dunida ku nool caqabad way imaanaysaa laakiin aan iskii dirin qoyskiina quruxda badan waxaan Ilaahay ugu bariyaa caafimaad iyo farxad Ilaahay idin siiyo ubadkana baad idin ka dhigo jacaylka wad u soo sabarteen nolosha dunidana Ilaahay waxaan ka bariyaa mid wanaagsan oo qurux badan idin ka dhigo awlaada u soo sabarteen oo lagu aflagaadeen in Ilaahay baari idin ka dhigo awlaad kale oo ka tiro badan inuu Ilaahay idin siiyo ayaa Ilaahay idin ka bariyaa qoysaska kale Soomaaliyeed dhibaatada Allah ka dul qaado qoyskan ku dayashada mudan walaalahayga oo runtii jacaylkooda 18 sano ma dhalaysid waa dhalay lagu haystay alxamdulillah ugu dambeynna waxay ku tusaysaa wax walba aad u sabarto oo Ilaahay aa barito ugu dambeyn ma aragtay inay ku guuleysanayso shalay hadii la kala geeyay lahay maanta dhibaateeyay way u soo dhawaad adeegay 18 sano oo la caay maanta 3 caruur ay haystaan oo laba lamaano ayuu Ilaahay ugu manaystay alxamdulillah Allah u barakeeyo idinkana u duceeya lamaana walba aad taqaanaan u sheergareeya muuqaalka si maarta dhiirigelin ay ugu qaadaan mar walba qisooyinka ay idin soo gudbiyo waa kuwa aan jecelahay dadkayga inay wax ka faa'iidaan wax badan ay ka ogaadaan lamaanayaasha oo caqabada haysatan Allah ka dulqaado aan u duceeyno qoyskan quruxda badan haduu yahay muuqaalka ugu horeeyay waxaan ka codsanaynaa subscribe saarto asxaabtaada gaarsii like-gaaga waa muhiim walaalaha qiimaha qadarintii sharafta mudan hiigsi lambaron Ilaahay ka sugo heerkan soo gaarsiiyay mar walba waa mahadsantiin biliis waxa idin ka codsanaynaa muuqaalka noo sheergareysaan like-gaaga waa noo dhiirigelin oo muuqaalka ayuu meel fiican gaarsiinaa aniguna wuxuu noo yahay dhiirigelin qaybta qolaadada ugu duceeyo qoyskan quruxda badan u soo sabray 18 sano jacaylkooda ugu dambeyn ku guuleysatay lamaana walbana cashir ha ka bartaan halka naga daawanaysan waa hiigsi anigu waa Subra Carab mar walba waxa idin leeyahay ha guuleysta jacaylka ha guuleysta jacaylka halkan waa hooyga qisooyinka hiigsi lambar 1 mar walba waxaan ku soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar ku laahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una share gareeya asxaabtaada hayloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka waa anigoo ah Subra Carab